wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa maanta soo bandhigtay warbixin ay ka diyaarisay qiimeyn iyo dabagal ay ku soo sameysay qaar ka mid ah mashaariicda ku jira barnaamijka geel ee ay ka wada shaqeynayaan wasaaradaha beeraha, xanaanada xoolaha, tamarta iyo macdanta oo ay fulinayso hay'adda RTA. qiimeyntan iyo dabagalkan ayaa waxaa lagu sameeyay 17 mashruuc oo ka mid ah barnaamijka geel waxaana ka wada shaqeynayay qiimeyntan wasaaradaha xanaanada xoolaha, beeraha, macdanta iyo tamarta oo ay hogaaminayso wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland. kadib markii uu kulanku soo dhamaaday ayaa waxaa ka warramay waxyaabihii kulankan ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Mubarak Cabdullaahi Ibraahim Daljir waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta halkan waxaan ku qabanay kulan ku saabsan mashruuca geel ama barnaamijka geel oo ay maalgeliso dawladda Mareykanka waxa fulinaysa hay'ad la yiraahdo RTI waxa uu maalgeliyay laga soo bilaabo 2016 ilaa waqti xaadirkan in ka badan 100 mashruuc oo isugu jira mashaariic yar iyo mashaariic dhexe oo lagu maalgeliyay shirkado badan oo muxuu ahaa wadanka iyo dad beeraley iyo dad xoolo dhaqato ah runtii mashruucan ujeedadiisa ama barnaamijkan ujeedadiisa ugu weyn waxa weeyaan in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha in shaqo la abuuro iyo in nolosha dadka la horumariyo markii ugu horeysay ayaa wasaaradda qorsheyntu ay sameysay dabagal iyo qiimeyn dabagalka iyo qiimeyntaasi waxa ay runtii soo taabatay 17 mashruuc oo ku fiirsan 6 gobol ee dalka waxa sidoo kale qiimeyntii dabagalka qayb ka ahaa hay'adaha dawladeed ee mashruucan uu la shaqeeyo ama barnaamijyadan ay la shaqeeyaan sida wasaaradda tamarta iyo macdanta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga iyo sidoo kale wasaaradda beeraha marka runtii qiimeynta iyo dabagalka warbixinta ka soo baxday baa maanta halkan lagu falanqeynayay ujeedada ugu weyn ee laga lahaa qiimeynta iyo dabagalkuna waxa weeye in la hubiyo khayraadkii ama resource-kii loogu talagalay dadka reer Soomaaliland in sidoodii loo isticmaalay muxuu ahaa in kale in mashaariicdu ay guuleysteen inay guul daraysteen marka halkan waxaan ku falanqeynay runtii 17 mashruuc ee sambalka loo qaatay ama muunada loo qaatay wixii muxuu ahaa guuleystay ama mashaariicda ay caqabado la soo daristay talooyin baa ka soo baxay marka warbixinta talooyinka ka soo baxay insha Allah waxa lagu sixi doonaa mashaariicda hadda socota inta harsan baa lagu sixi doonaa waxa sidoo kale maxay ahayd runtii warbixintan ay anfici doontaa mashruuca qaybtiisa labaad oo insha Allah dib loo cusboonaysiin doono sida qorshuhu yahay hadii laha ka dhigo runtii waxa ahayd qiimeyn wax badan ka soo baxeen talooyin badan ka soo baxeen wax badan oo muxuu ahaa sixitaanana wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale uu la shaqeynay mashruuc hadii ilaha ka dhigo way sameyn doonaan sidoo kale agaasimuhu waxa uu fariin u diray hay'adaha wadanka ka shaqeeyay in sanadkan 2020 ay dardar gelin doonaan isla markaana ay qiimeyn iyo dabagal ku soo sameyn doonaan dhammaan mashaariicda ay ka wadaan wadanka waxaan jecelahay sidoo kale inaan chance-kan uga faa'iideysto inaan u sheego hay'adaha kale iyo partnerska kale wadanka ka shaqeynaya in wasaaradda qorsheyntu sanadka 2020 inay aad u dardar gelin doonto waaxda dabagalka iyo qiimeynta oo iminka wixii ka dambeeya runtii mashaariicda wadanka ka socda oo dhan in dabagal iyo qiimeyn hadii la ka dhigo lagu sameyn doono aad ba mahadsantiin